Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada shirkadii SNS iyo cadaradeedii walaashan iyago inoo sharaxaysa insha Allah daawasho wanaagsan. Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكون شركة عذرة ذي أنت استعمال ما شاء الله النمعة ينساقون حجرنا العقبة نور قمتي أنت آن استعمالنا إن شاء الله حنجعلنا نقصو بيرتان وإذن كنا معلين كشيكيسان إن شاء الله هدي لهايلا عذرة قفك الدون يبوغ السامبل أي يبسن كرا بوغ يرونايس ويان ساسو إيجي هاي وحاكوتر اللحدن سامبل inta sare buluuga waa ragga inta cadaanka ahna waa dumarka halkan waxaan ku qortay kuwa ugu udgoon anigu hiba ahaan aan ka helo ama habluhu ay ka ganacsadaan hablaha ganacsada laga iibsado ayaan ku qoray intaasi waa dumarka nambarada ugu udgoon aan ka helnay intana waa kuwa ragga weeyaan iyada kuwa inamadeedu ay dalbadaan ama dalabkoodu ugu badan yahay weeyaan shirkadda ma sha Allah qofku laakiin markuu sample haysto isaga ayaaba tijaabin karo isticmaali kara ama cadra aad garanayso hore u garanayso dukaamada yaaraad ma sha Allah aad ku wada dalban kartaa dumarka bogoskoodu waa kuwan saasuu ku imaadaa cadradana saad u arkaysaanba 20% perfume ayaa ku jirta marka bogoskaasay ku imanayaan quraaradooduna waa tan oo quraaradooduna sidana u eg tahay hadda kuwani waa Lancome ayay ma sha Allah matalayaan cadarka Lancome la yiraahdo tan waa body lotionkii idinka arkaya marka cadarada shirkadu ay iibiso designerka cadar designerka ayay matalayaan oo iyagaaba ka udgoon kana rasiinsan sababtan insha Allah waan idin sheegi doonaa hadii la hayraahdo maxaa la yiraahdaa sababta uga jaban yihiin waan idin sharxi doonaa hadii la hayraa videoga dad si daawataan cadar kastaba hadaba waxaad helaysaa cadarkiisii so for example Lancome cadarkiisii u dhigmayay iyo creamkiisii oo la marsanayo Lancome creamkiisii ama cadar kasto jeceshay creamkiisii iyo shower gelkiisii goonina u iibsan kartaa gift ahaan oo ku iibsan kartaa oo hadiyad ahaan oo ku iibsan kartaa kuwa raguna waa kuwan bogoskan ay ku imanayaan hadda kuwani maxaa la yiraahdaa waa boss weeyaan ragga kuwaduna waa kuwan quraaradina waa tan waa 50 ml quraaradu waa idinka arkaya labada quraarad waa 50 ml raggu ma laha cream laakiin waxay leeyihiin shower gel iyagu shower gel ay leeyihiin oo isticmaali karaan shower gel koodani iyo alaabtan ay iibiyaan cadaradani waa chemical free wax chemical oo jirka dhibaateynaya laguma darin waxa lagu talagalay dadka allergiga leh ayaa lagu talagalay ama cuncun kale iyagu way isticmaali karayaan cadaradeena iyo creamadeena way isticmaali karayaan iyo alaabta shirkadda runtii waayo creamadan wixii lagu dareeyay chemical ahaayo qofka cuncun ku keenayay ayaan maaragtay ku jirin marka qofka cadarka badanka allergy kuma laha laakiin waxan ay ku soo khafifiyaan ay ku daraan dheeraadka ah ayaa dadka allergy ku kiciyo dhibaateeya dadka samboorka la hoodhe kale dadka eczema la hoo kale dadka cuncunkooda waxa ay ku darayaan dheeraadka ah ayaa qofka dhibaya waa cadarka isaga wax organic rasiina ayaa original ahaan laga sameeyaa marka hadaba maxay cadaradani shirkadani uga jaban tahay cadarada designerka maadaama uu leeyahay waa Lancome waa boss maxay uga jaban yihiin sababta ay uga jaban yihiin waxa weeyaan cadarka marka aad iibsanayso suuqa uu yaalo designerka uu yahay marka hore horta qof baa iska leh qof caana ayaa leh marka maadaama qofkani caan yahay magacii ayaa horta bixinaysaa waa qodobka koobaad qodobka labaad waxa weeyaan xayeysiintiisii wixii ku baxday kharashkii ku baxay cadarka oo dhan ayaad adigu bixinaysaa oo qiimaha lagu dul saaraya maxaa daba hoos imanaya xayeysiintii waa idinka arka TV-ga ku xayeysiiyaan celebrity ama dad caanaaba oo xayeysiiya lacag baa la siiyaa maxaa la yiraahdaa billboard hadday ku soo sawiraan lacag bay bixiyaan joornaal hadday ku sawiraan wadan kasta ay cadarka geynayaan waa inay dhinac kastaba afkoodii ku xayeysiiyaan oo lacag ku baxda oo wadanka afkiisa lagu xayeysiiyaa marka wixii kharash ka baxay ta saddexaad qodobka saddexaad designka quraarada designkeeda maxaa la yiraahdaa ama kharashka ku baxay designka quraarada adiga aad dusha laga saaraya
marka waxa aad qiimaha aad bixinayso ee cadar ka bixinayso ama 70 euro ama 70 ama 100 gini ama 100 euro ha noqoto waxa weeyaan magaca caanka ah iyo kharashkii qofkan ku baxay ayaad bixinaysaa laakiin quality-ga cadarka ma bixinaysid cadarkan maxaa la yiraahdaa ay meesha kuugu soo shubayaan waa in yar laakiin quraarada lagu weyneynaya oo dusha laga weyneynaya oo laga qurxinaya oo indhahaga la siraya oo caad la saaraya si aad maxaa la yiraahdaa aad u moodo inay wax badan meesha ku jiraan aad u moodo laakiin quantity-ga ama waxa cadarka ku jira runtii aad ayuu u yar yahay qiimahoodana waa inaga aragnay sida qaaliga u yihiin dadka allergiga qabaana maba isticmaali karayaan waayo cadarka markay qaadaan waxyaabo kale ku daraan haddaba shirkadani sidee ayay ku heshay in ay la ur noqdaan cadaradii qaaliga ahaa ama suuqa yaalay cadarada saliid baa laga sameeyaa cadar kastaba xawaash ama saliid ama ubax waxa uu eegyahay ayaa laga sameeyaa haddaba shirkadda samaysta ee saliidda inta alaabta nirtan soo qaado ee isku geegeysa ee samaysa xaq ayay u leedahay cid alle ciday doonaan inay ka iibiyaan warehouse bay leeyihiin cadarka markaa Lancome iyo Chador iyo Chanel kuma qorna waxa weeyaan saliid meel taalo weeyaan oo number leh kuwan cadarada qaaliga iibiya dad bay soo diranayaan qof kasto cadar doonayo oo lacag leh oo maanta awoodi karayo lacag milyaneer ah oo lacag leh shirkadaas ay u tagayaan way dadkii ay u dirsadeen baa soo ursanaya dadkii ay u direen markay soo ursadaan cadarkii waxay oranayaan kaasaanu ka helnay udgoonkiisa kaasaanu ka helnay ubax laga sameeyay ama sinjibil laga sameeyay ama xawaash laga sameeyay ama dhir kale laga sameeyay kii markay saliidii ay soo qaataan ayay shirkadahan sida Chadorka iyo maxaa la dhahaa Armani iyo waxay sameynayaan marka intay qaataan ayay iyagu alcohol ku sii darayaan ay khafiifinayaan paraffin bay ku sii darayaan wax kale ku sii darayaan magac bay u bixinayaan marka waxa kooriya Chanel Mademoiselle weeyaan kani waxa weeyaan maxaa la dhahaa Christian Dior Sauvage weeyaan kani maxay Armani Strong with you iyaga marka magac u sii bixinaya oo magaca iyaga ale haddaba shirkadeynani waxay sameynaysaa waxay tagaysaa warehouse-kii ama shirkadii bay tagaysaa shirkadda cadarada u soo sameeyay waxa la yiraahdaa Salus Turkiga ku yaalaan designerka 90% designerada iyada u sameeysa maxaa la cadarada marka shirkadani warehouse-kii Salus bay tagayaan waxay oranayaan karaanu ka helnay saliidii bay soo qaadanayaan ama asaaskii bay soo qaadanayaan markay soo qaataan ayay waxay sameynayaan waxay isticmaalaan 8 weeks bay meel taangiye ku shubaan si alcohol iyo maxaa la yiraahdaa waxba laguma daro waxay ka maxaa la yiraahdaa waa lagu shubaa waa la soo habayaa waa la soo hagaajiyaa 20% oilkii ayay isticmaalayaan halkan kuwa kale 5% ay ka isticmaalaan ama 3% cadarka dhahda Dutolet ay ku qoran tahay uu ka khafiifsan yahay 3% baa ku jira ama ka yar cadaradan waa weyn isticmaalana 5% cadarku ka sii qaalisan yahay sida Dior Oud oo kale ka badan percentage-ku oo cadarku weyn rasiin si noqday jecel urtooda marka ayaga ku go'aaminaya ku khafiifinaya si aad lacagtada moor ula sii baxdo lacag kala sii baxaan keenna waa digan arkaya 20% ayaa ku jirta that's why uu ga rasiinsan yahay ugana udgoonkiisuna uga masha Allah uga badan yahay haddaba iyagu waxay isticmaalayaan dad aniga iyo adigoo kale ah ay isticmaalayaan in alaabtoodii u iibiyaan dadkaasi dad sii keenaan dadka keenaan dad kale sii keenaan lacagtii markaa kharashkii ku bixi lahaa xayeysiinta iyo hawshan oo dhan ku bixi lahayd oo million dad Google dad geliso kharashka ka baxa dadka cadarada kaga baxa commercial malaayiin billions of dollar baa ka baxa tii ayaa markaa adiga ka bixi lahayd ayay shirkadan Essence ay inaga ina siinaysaa commission ahaan kuu siinaysaa jumlad baad kaga iibsanaysaa lacag baa kuu dul saaran lacagtii tafaariiqda lagu iibinayay dad baad keentay dadku iyagu dhibcahoodii way helayaan adiguna dhibcahaaga waad helaysaa maadaama aad qofkan keentay as a thank you waad mahadnaq waxa ku siinay abaalmarin ba shirkadu ku siinaysaa adigana inaad pointiga ka hesho pointida hadhow ururo lacag noqda marka waxa weeyaan qofkan aad keentay waxba kama qaadaysid oo isma dhimayaan dhibcihiisu lacag dheeraadana kuma qaadanaysid waxa weeyaan just qofkii shirkadda lahaan baa ku yiri hadaad waxaygan ii iibgeyso ama dad aad ii keento dadkaasina dad ii keenaan maadaama adigu horseed aad ahayd oo dadkan igu soo xidhay adiguna abaalmarintaas aad leedahay marka cadaradan maasha Allah aad bay udgoon yihiin aad bay rasiin u yihiin
dadka allergiga oo dhan baa isticmaali karaya chemical ma laha waayo lacagteena aad u bixinaysaa maanta weliba inagu Soomaali baynu nahay qaxoonti baynu nahay dal iyo dad bayna sugaya inaan wax la dhigtaa fiican in wax kala sadaqa lagu bixiyaa wanaagsan marka maanta caadada inta dukaan dhex istaagto hadana bila quality-ga ah inta dhex istaagto $100 soo siisanayso bas magac inaad qof kale uun iibsato waxa ka fiican runtii inaad jeebkaaga u tudho oo cadar udgoon oo wanaagsan oo lacag fiican ku helayso aad iibto reerahiina u tilmaantaan asxaabta u tilmaantaan qof kastood ka naxayso oo isleedahay maanta waxa dhigto aad u tilmaamaysid weeyaan insha Allah marka wixii faahfaahinaa insha Allah wada soo weydiin doontaan iyo ganacsi dad rabtaan wada soo weydiin kartaan haddii aad doonaysaan naftiina u dalbataan insha Allah wada soo weydiin kartaan